qaar kamid ah salaadiinta cuqaasha boqorada iyo culimada gobolka Sanaag ayaa kulan ballaaran oo maanta magaalada Ceergabo isugu yimaadeen waxa ay baaq u wajahan siideynta oorada Sheekh Maxamed Cali Biixi u jeediyeen madaxweynaha Soomaaliland Axmed Silaanyo taas oo kaga codsaday in oorada Sheekh Maxamed Cali Biixi oo in ka badan muddo sanada ku xidhneyd magaalada Hargeysa isla markaasna aan hore wax maxkamadda loo geynin la sii daayo dhanka kale waxa culimada iyo salaadiinta gobolka Sanaag ku celceliyeen in loo tixgeliyo baaqooda waxaana soo bandhigeen qaar kamid ah dacwadaha lagu soo oogay Marwa Barre Xasan Cabdullaahi oo ah marwada Sheekh Maxamed Cali Biixi taas oo sheegeen in dacwada loo haysto marwadaasi aanay ahayn dacwad sharciga waafaqsan iyagoo arintaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii kamid ahaa sugu nimi in aynu ka hadallo oo baaq ka diro arin aynu u aragno inay tahay dulmi iyo tacaddi lagula kacay sheekheeni weyna Sheekh Maxamed Cali Biixi xaaskiisii gabadhaas oo xidhnayd muddo sanad iyo badh ku dhow aaninta maxkamad la keenin maalin dhaweyd markuu xaakimkii dareemay in la eriyo oo xukun dulmi iyo joor ku dhisan uu ku riday halkan waxa aynu isugu nimay sida la sheegayo tacadiyo iyo gaboodfallo loo geystay xaaskii sheekheena Sheekh Maxamed Cali Biixi sheekhu 22kii Ramadaan waxa lagu casumay isaga iyo culimo kale madaxtooyada halkaas oo habeenka isaga la siiyay kelmadii halka culimadu ay ka oran lahayd ee lagu maamuusay habeenkana uu kaga hadlayay nabadgelyada iyo qiimaha ay leedahay inagoo wada ogsoon sheekhu kaalmihii uu ka soo qaatay nabadgelyada iyo ceerlada iga horeysay sheegtay gabadhaasi waxay xidhnayd muddada halka laga sheegay oo ay ku xidhnayd sharci darro dawladda madaxweynaha xuquuqul insaanka waxaanu ka codsanaynaa in gabadha xorriyadeeda loo sii daayo waxa soo ajibteen sheekheeni weynaa ee gobolkeena uu ahaa sheekha ugu caalisan ee taswiirkeena marin jiray oo dulmi badan la sheegay inuu ka dhacay Hargeysa oo ay maxkamadaas xukuntay xaaskiisii kuna xukuntay dulmi fara badan anagoo rajaynayna mar haddii sanad xidhnayd in laba oranayo qofka sanadka xidhnaa uu iska dhameystay xarigiisii haddana 3 sano lagu riday aad iyo aad gobolka dadkii ku noolaana uga xumaadeen wax aad loola yaabaa inaga oo hadeerto magaalada yada iska badhan oo yaaniga gobolka Sanaag isaga oo sheekhu uu yahay sheekhii gobolka haddana uu yahay sheekhii wadanka iyada oo muddada inta leeg uu taagnaa madaxtooyada oo uu inta lahaa waxa rabaa xukun cadaalad ah oo la mariyo reerkay horta kulligiyo inta yada reer Ceergabo mid suuqa jooga iyo mid halka joogaba isku joodanahay soo jeedadayadu waxa weeye inay khaayi ka xiray gabadha ma xirin inay Sheekh Cali Biixi gabadhiisii qura dumarkii reer Ceergabo u xiray waxaanu leenahay sheekhaasi inuu tuug yahay wuxuu ninka maxkamadda haystay inuu tuug yahay waxa uu nadiira moobilkii gabadha lagu qabtay oo lacagta ay ku jirtay gabadhiina uma celin maxkamaddana ma keenin qadiyada la leeyahay gabadha bay ku dhacday sheekha xaaskiisii halkan waxa laga akhriyay dogmatiyada halka laga akhriyay kuwa dad ku qancay ma haddii aanu nahay odayaashii gobolka traditional leaders gobolka Sanaag aad iyo aad baan uga xunahay sida yani martay maxkamadu ay ka yeeleen xaaskii sheekha beledka runtii hadal qiimo leh ayaa halka ka baxay oo ku saabsan munaasabada sheekha iyo xaaskiisa runtii waxaan halka ka qirayaa in hadal adag oo ku socda madaxweynaha iyo dawladda reer Ceergabo halka ka soo jeediyeen halka ma fadhiyaan reer ama qoys reer Sanaag oo dhan hartiya isaaq waa fadhiya maraayada halka fadhida raggan idila hadlayeen waa chiefafkii gobolka Sanaag oo dhan iyo culimadiisii oo huwaniye shacabkiisii iyo salaadiintii dhammaan waa ku dhinnaay halka waxaanu ka midaysanahay codkaas baxay oo ah in si degdeg ah oo bilaa shuruuda loo soo daayo xaaskii Sheekh Maxamed Cali Biixi waa Barkad Maxamuud Geedi Somna Yustifi Ceergabo.